إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى وبإذن الله الكريم waxaan bilaabaynaa kitaabkii mi-ata xadiidka ahaa. waa kitaabkii yaraa ee koobnaa. kitaabkaas oon ugu talagalnay ardada in ay ka faa'iidaystaan. waa kitaab 100 xadiida oo lasoo koobay oo weliba aada loo soo ururiyey, aadna loo soo fududeeyey. axaadiistiisna ay yihiin axaadiis biyo kama dhibcaana oo wada saxiix ah. kitaabkaasaan bilaabaynaa. saxaabiga ugu horeeyo 50 xadiid baa kitaabka ooga soo arooray. waa juskii koowaad ilaa iyo juska 5aad waan wadi doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala noo qadaro. waxaa laga wariyey xadiidka koowaad waa abaa hurayra, saxaabiga la yiraahdo kuna caan baxay magacaas abaa hira ama abaa hurayra. waa cabdiraxmaan binu saqri addowsi. cabdiraxmaan binu saqri addowsi magacaas waxaa u bixiyey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. magaciisa waxaa la dhihi jiray islaamka ka hor intuuna soo islaamin cabdushams baa la dhihi jiray ama cabdushamsi baa la dhihi jiray. markuu soo islaamay kadib nabi maxamed waa ka bedelay magacaas oo u bixiyey cabdiraxmaan binu saqri addowsi. abaa hurayrana waa la yidhaahdaa oo waa ku caan. magaca abaa hurayrana waxaa loogu magac daray sababta waxaway wuxuu lahaan jiray baa la yidhaahdaa bisad yar. hirada waxaway waa mukulaasha yar, waa hira la yidhaahdaa. mukulaal yar uu lahaan jiray oo aada u jeclaa baa loogu magac daray baa la yidhaahdaa. isigoo mukulaal yar haysta oo ka ilaalinayo kuleyl waxaa la roobka iyo waxyaabo ka duwinayo waa la arkay oo waxaa la yidhi abaa hurayra ama abaa hira. nabigana wuu ugu wici jiray abaa hurayrana wuu ku faani jiray abaa hir buu nabiga dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam. saxaabigaasaa laga wariyey, mukahiriintuu ku jiraa. waxaa laga wariyey 4574 xadiid baa laga wariyey abaa hurayra. marka saxaabigaasaa xadiidka laga wariyey xadiidka koowaad ilaa iyo xadiidka 50aad aan ka gaari doono in shaa allahu tacaala. marka saxaabigaas abaa hurayra ah baa xadiidka laga wariyey. alxadiidu alawal ب100 xadiid lilxifdi. axaadiidtana waxaa laga soo ururiyey badankooda waa saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa laga soo ururiyey. الxadiiث الأول عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. xadiidka koowaad waa abaa hureyra laga wariyey radia allahu tacaala canhu. waa cabdiraxmaan binu saqri addowsi. wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu, allaha ka raali noqday, ana rasuulallahi rasuulka alle sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama allaha nabad yeelay qaala nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam kalimataani laba kelimadood. alkelima waa hadal kooban, waa hadal aada u kooban waayo. kalimataani laba kelimadood, kelimaadkaasoo khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka dushiisa ku fudud, oo qofkii dhahaya aan u baahnayn inuu xifdiyo oo xifdi dheer aan ugu baahnayn inuu maamaahiyo oo xoogaa ku fikiro uma baahno. carabkay ku sahlan yihiin oo qofka inuu u fariisto oo ku fikiro oo xifdiyo oo carabka uu ku tirin gareeya uma baahno. wuxuu nabigu yidhi thaqiilataani culculus fil miisaani, miisaanka gudihiisana ku culus. waa miisaanka xasanaadka ah. waxaa laga hadlaya miisaan adduunye ma ahan, waa miisaanka xasanaadka ah. aada oogu culus oo culculus haddii la yidhahdo hala kafadeeyo dhanka ilaahi subxaanahu watacaala miisaankiisa dhanka ajirkaa laga wadaaye ku culculus. xabiibataani loogu kalgaceyl badan yahay waa labadii kelimood. ila araxmaani allaha naxariista agtiisana aada loogu kalgaceylo, ilaahay baa aada u jecel subxaana. uu nabiga sala allahu calayhi wasalam sheegay. u fiiriya marka 3 qasladood waa lagu sheegay kelimaadka nabiga uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam oo noo imaan doono. wuxuu yidhi kalimataani, horta waa laba kelimadood
kuwaasoo khafiifataani fudfudud qofkii dhahaya way u fududahay way u sahlan tahay oo kuma cuslo cala lisaani bay ku fududahay oo carabka dushiisa ku sahlan thaqiilataani culculus fil miisaani miisaanka iyo kafadda xasanaadkana ku culculus oo haddii kafad la saaro miisaankaaga xasanaadka aada kuugu cusleynayo xabiibataani loogu kalgaceyl badan yahay ila araxmaani allaha naxariista agtiisana aada loogu jecel yahay nabiga wuxuu yidhi subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allah ilaahay baa nasahan subxaanah wabixamdihi walxaal waayo waawda bixamdihi mahaddiisa lala qabo subxaana allah ilaahay baa nasahan alihii alcadiimi ee weynaa intaasaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wax fudud ma ahan qofka ilaa intee jeer oo dhihi karaa intaad waxa waaye qasacbalaad iyo balaayo iyo sheeko iyo xan iyo hees iyo waxaa ilaahay subxaana watacaala uu diidiyo munkaraada intaad ka daba wareegayso isaga daba wareegaysid subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ajirka nabiga uu ku sheegay u fiirsada waa kalimataani khafiifataan cala lisaan thaqiilataan fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allah wabixamdihi subxaana allah alcadiim ilaahay subxaanahu watacaala baa kheyr badan ilaahay subxaanahu watacaala baa naxariis badan ilaahay subxaanahu watacaala waa baari ah kelimadaad marka aada carabka ka dhahaysid waxa ilaahay subxaana watacaala agtiisao ajar uu kuu go-aayo wax lasoo koobi kara ma ahan wax lasoo koobi kara ma ahan marka waad fahmi kartaa ilaahay subxaanahu watacaala sida waxawaaye addoommadiisa kheyrka uu la jecel yahay kelimaad fatwa nabigana sala allahu calayhi wasalam ugu kheyr suuraayo oo ugu qeyr miiraayo marka aada ugu fiirsa xadiidka ku dhaqankiisana waa lagaa rabaa ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo kheyrka carabkeenana ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigo radbun min dikri illahi subxaanahu watacaala mid ka qoyan mar walba ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abaa hureyra laga wariyey waa cabdiraxmaan binu sakri addowsi ana rasuulallah rasuulka alle sala allahu naxariis allaha yeelo caleyhi nabiga korkiisa wasalama allaha nabadgeliyo qaala nabiga wuxuu yidhi kalimataani laba kelimadood waa laba eray oo kookooban oo aan cuslayn oo isku xiran kuwaasoo khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka dushiisa ku fudud thaqiilataani culculus fil miisaani miisaanka gudihiisana ku culculus xabiibataani loogu kalgaceyl badan yahay labadii kelimood way ila araxmaani allaha naxariista ah xaggiisa waa subxaana allah ilaahay baa nasahan wabixamdihi mahadiisa ayadoo lala qabo subxaana allah ilaahay baa nasahan alihi alcadiim ee weynaa muttafaqun calayhi xadiidka waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waa xadiidka waa xadiid biyo kama dhibcaana oo waxawaaye sixadiisa aan murun aan ku jirin iyo qartaato wey ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo xadiidka labaad waxa weeye abaa hureyra laga wariyey radia allahu tacaala canhu saan soo sheegay konton xadiid oo abaa hureyra laga wariyey waa mari doonaa insha allahu watacaala xadiidka labaad waxa weeye can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu waa laga wariyey allaha ka raali noqdo saxaabiga abaa hureyra ama abaahir ama cabdiraxmaan binu sakri addowsi qaala wuxuu yidhi abaa hureyra jaa-a waxaa yimid rajulun nin baa yimid nin socdaa yimid ilaa rasuulillaahi rasuulka all u yimaaday sala allahu calayhi wasalam nin baa nabi maxamed u imaaday sala allahu calayhi wasalam faqaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow man ruuxeeba axaqu nnaasi dad ugu xaqnimo badan bixusni saxaabati saaxiibtinimo wanaaggeega qof aan la saaxiiboon wanaag u sameeya kee u qiimo badan oo u mudan wey yaa u xaqle oo u xaqnimo badan qof aan wanaag u sameeya yaa u xaqnimo badan oon saaxiib iyo wanaag iyo samafal aan u sameeyo wey qaala nabiga wuxuu yidhi ummuka hooyada xadiidkan wuxuu ka turjumayo u fiirso waxa weeye waa biru lwaalideyn waa xaqa waalidka gaar ahaan hooyada xaqeeda u fiirsada marka gaar ahaan xaqu lum nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ummuka hooyada waa u xaqnimo badan qof aada wanaag u samaysood samafal iyo wanaag aada u samaysood u kheyr miirtaaye waa hooyadaa baa mudan oo ku xaq leh way qaala wuxuu yidhi ninkii saxaabiga ahaa humma kadib markaan hooyadee u asxaan sameeyo kadib man yaa ku xigo oo wanaaggeega oo wanaag falkeyga iyo saaxiibtinimo wanaaggeega yaa kaloo labeeyo oo hooyadee darajada labaad yaa soo galaayo hooyadee markii laga tago qaala nabigu wuxuu yidhi ummuka mar labaad hooyadaa ku celi mar labaad hooyada u asxaan sameey intii aadan gudbin darajada
labaad aadan u gudbin hooyada u asxaan samey oo hooyada ku celi. qaala wuxuu yidhi ninkii huma markaan hooyaday mar labaad u asxaan sameeyo oo waxawaaye aan u kheyr miiro, man yaa ku xigo darajada saddexaad soo galaayo. qaala wuxuu yihi nabig sal ly slam ummuka, hooyada u asxaan sameey. waxaad fahmaysaa marka 3 jeer ama 3 darajo in ay dheer tahay aabaha hooyada inay dheer tahay marka waxa waaye hooyada wax badan baa qur-aankana ka hadlay, wax badan buu qur-aanka ka hadlay. wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan waa aayad, kurhan waa aayad kale. hooyaa soo xambaartay. وxmlh وfisaalh 30 شhهرا xatى إda balغa أshudh وbalغa 40 سنة qاla rabi أwزicnii an أshkura nicmataka اlatي أncamta عlaya وعlى waaliday. ilaahay subxaanaه wataعaalى hana waafajiyo biriga. ilaahay subxaanaه wataعala hanaga dhigo kuwa waalidiintooda u baarinimo fala, gaar ahaan hooyooyinkooda adeeco. labadoodaba xaq bay kugu leeyihiin, laakiinse hooyada waa daciif, hooyada waa miskiin, hooyada waxaweye aad bay ugu daciif, waxaay ugu sahlan tahay. haddana waxaad arkaysaa zamanka la joogo in aad iyo aad ay u dhibaan ilmaha hooyada, inay u dhibaan oo ay ku dhiirtaan oo ay ku madax adag yihiin. waana waa ciqaab, waana cadaab. intaad yar tahay macaan, markaad weynaato haddaad ku caasi garowdo ood waalidkaaga adeeci weysay, waxaa kuu yaalo waladii qaala liwaalidayhi ufin lakumaa atacidaananii an uqrij waqad qalat ilquruunu min qabli wahumaa yastakiitaan illah waylaka aamin ina wacdallaahi xaq. fayaquul aayadda ka dambaysa maxay ma hada ila alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ulaaئika aladiina xaqa calayhim alqowlu fi umamin qad qalat min qablihim min aljini walinsi inahum kaanuu qaasiriin walikullin darajaati mima camiluu. marka nabiga sala allahu alayhi wasalam ninkan saxaabiga ah wuxuu yihi wax aad wanaag u samayso waxaa ugu xaqnimo badan oo saaxiibto wanaag aad kula saaxiibto hooyada. 3 jeer buu yihi ummuka ummuka ummuka, hooyada. marka darajo fudud ma ahan in waxa weeye hooyada lagu caasiyayo, darajo fudud ma ahan. ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo ayagana. ilaahay subxaanahu watacaala ducadooda hanoo aqbalo. walle waalidka gaar ahaan hooyada habaarkeeda haddii si xaqa qalbigeeda ooga soo go-o carabkaa laga yaabaa in ay kaa tiraahdo wax ayadoo qalbigeeda uuna deganayn oo qalbigeeda uuna ku raali ahayn, laakiin qalbigeeda hadday kaa goosato balaaya kugu dhacayso. ogow, balaaya kugu dhacayso. xadiidka aan dhamaystire huma kadib qaala wuxuu yihi ninkii man yaa ku xigo. qaala huma man yaa ku xiga. marka darajada afraad qaala nabigu wuxuu yihi huma abuuka, kadibna aabaha u asxaanfal. marka 3 darajay ka sareysaa hooyada aabaha ka xaq weyn tahay. xadiidkaasaan ka qaadanaynaa marka. xadiidka abaa hureyra laga wariyey can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yihi jaa rajulun nin baa yimid ilaa rasuulillahi rasuulka alla u yimid sala allahu alayhi wasalam. qaala wuxuu yihi yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow, man qofkeebaa axaqu nnaas dad ugu xaqnimo badan bixusni saxaabati, la saaxiibadeeda wanaageeda. qofaan la saaxiibo oon wanaag ula saaxiibo oon wanaag u sameeyan u samafalaay yaa ugu xaq badan. qaala wuxuu yihi nabiga ummuka, hooyada. qaala wuxuu yihi ninkii huma kadib man yaa ku xiga. qaala wuxuu yihi nabiga ummuka, hooyada. qaala wuxuu yihi ninkii saxaabiga ahaa huma kadib man yaa ku xiga rasuulka ilaahay darajada 3aad. qaala wuxuu yihi ummuka, hooyada. marka 3aad u asxaan samey. qaala wuxuu yihi saxaabiga huma kadib man yaa ku xiga darajada 4aad soo galayo. qaala wuxuu yihi nabiga huma kadib abuuka, aabaha u asxaanfalay oo asxaanfal. muttafaqun calayhi, xadiidka waa muttafaqun calayhi, bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay. xadiidka 3aad oo noogu dambeeyo 3 xadiid baan u qaadan doonaa insha allahu tacaala. xadiidka 3aad waa abaa hurayra radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi, rasuulka alle sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi iyaakum wadan fa ina danna akdabu lxadiid. u fiirsada xadiidkaas, waa jawaamicu lkalim. nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam waa jawaamicu lkalim. waxyaabaha la siiyey bay ka mid tahay nabiga sala allahu alayhi wasalam hal kelima intuu ku hadlo waxawaaye halkaas kelima baa laga yaaba waxawaaye god iyo goofba inuu buuxiya laga yaabaa markaasaa waxawaaye kelimo kooban. waa tii xadiidkii waxawaaye 40ka ku sugnaa nabiga sala allahu alay slam ninkii saxaabiga ku yiri rasuulka ilaahayo qul lii qawlan laa as'al axada min bacdik qul aamantu billah huma istaqim. kelimo kooban ii dheh, aamantu billah huma istaqim. laa darara walaa diraar oo kale u fiirsada.
nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi iyaakum war waxaan idinkaga digayaa hooy idinka iyo waxaan idinkala digayaa idinka iyo wadanna malaha malahaas waxa waaye dhannu suu waa dhannu suu waa suu dhann waxa waaye malaha xun baa laga hadlayaa idinka iyo waxaan idinkala digaya inaad wax u malaysaan waxaadan hubin inaad tiraahdo waan maleynayaa sidaasaan u qabaa sidaas bay ila tahay iyo idinkaan idinkala digaya buu nabiga sala allahu calayhi wasalam leh maxaa yeelay fa ina dhanna malaha akdabu lxadiidi wax lagu sheekeeyo hadal lagu hadlo waxa ugu been badan weeye waa malo waxaan u maleynaa inaad tirahdid maalintaad tirahda waxaan u maleynaa inay wax xisaab ku yihiin waxaan u maleynaa inay xoolihii meel heble ku maqan yihiin waxaan u maleynaa inay heble aniga waxawaaye hooshaas ka shaqaysay waxaan u maleynaa inuu hebel ixaday waxaan u maleynaya in heble iyo hebel inuu isku keensoo diray waxaasoo dhanba waxa weeye waa malo malahana nabi maxamed uu ka digay sala allahu calayhi wasalam iyaakum waxaan idinkaga digayaa wardadow warhay ummatu maxamediyey idinka iyo waxaan idinkala digayaa wadanna malaha aan idinkala digayaa qur-aankana sidaasuu ka cabiray alla subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adhann ina bacdu dhanni ithmun malaha qaarkiisa waa ithmi waa dembigal waa dembigal buu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku leeyahy fa ina dhanna malaha oo wax la malmaleeyo waxaadan hubin oo aadan waxawaaye yaqiin iyo xaqiiqo aadan u hayninna in aad ku hadashaaye akdabulxadiidi xadiid iyo war iyo sheeko wax lagu hadlaaye tan ugu been badan waa dhanni iyo malo waxa adiga aad malmalaysay wey waxaan u maleynaa waa tuhun waa malo waa dhanni waxaasoo dhan waxawaaye waa la kala saarsaaraa laakiinse isku jamc bay ku imaanayaan shaki iyo dhanni waa la kala qaadaa markii usuul fiqiga la joogo laakiinse haddana waxa weeye waa isku hooyo waana isku aabo al oos bay kasoo baxdaa waxawaaye faracooda asalkooda mid ah ha kala duwanaadeen markii usuulka la joogo wey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu waardaah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkala digayaa dadow idinka iyo waxaan digniin idinka kala siinayaa idinka iyo wadanna malaha xun baan idinkala digaya wey walaalka hataa haddii waxawaaye aad shakiso waa inaad malahaaga aada wanaajisood malo wanaagsan u qaadaa lagaa rabaa waa inaad malo wanaagsan aada u qaadaa oo aad waxawaaye xaggiisa aad kheyr ku tuhuntaa kheyrka waa inaad ku tuhuntaa haddii laakiinse waxawaaye dhanniga uu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka digaya waa malaha xun inaad xumaan u malayso walaalka muslimka ah akha muslimka inaad xumaan u malayso taas buu nabi maxamed ka digaya sala alla alay wasalam waxaan idinkala digaya idinka iyo wadanna malaha xun fa ina dhanna malaha xunka ah oo waxawaaye la malmaleeyo akdabulxadiidi xadiidkan ugu been badan wey wax lagu sheekaysta waxaa ugu xun uguna been badan uguna qaab daran ilaahay subxaana watacaala agtiisana ciqaab looga mutaa oo waxawaaye ay suurtagal tahay in lagugu ciqaabo waxawaaye malaha xunka ah mar walba marka waa inaad kheyr tuhuntaa mar walba qof muslim baa tahay waa inaad kheyr inaad tuhuntid oo walaalkaa muslimkaa ku tuhunta wey waa inaad ku tuhuntaa xataa haddii lagu xanto oo lagu ay wax kaa soo gaareen adoon hubsanin xataa haddaad hubsato waxaa kuu qeyr badan inaad iska cafiso waa kuu qeyr badan haddana adoon waxba hubin inaad waxawaaye walaalkaa ka kor dhacdid oo aad xumaan aad la tiigsatid waxyaabahaasoo dhan buu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka digaya waan soo dulmaraynaa axaadiidta can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu waa xadiidkii koowaade ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi kalimataani laba kelimadood kuwaasoo khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka dushiisa ku fudfudud thaqiilataani culculus fi lmiisaani miisaanka gudihiisana aada ugu culculus oo kheyr badan aad ka helayso qiyaamo xabiibataani loo kalgaceyl badan yahay ila araxmaani allaha naxariista ah allaha naxariista guud naxariistahay xaggiisa loogu kalgaceyl badan yahay subxaana allah ilaahay baa nasahan weye allihii bixamdihi mahadiisa lala qabo subxaana allah ilaahay baa nasahan allihii alcadiimi weyna waa muttafaqun calayhi xadiidka muttafaqun calayhi wey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu waa xadiidkii labaad qaala wuxuu yidhi jaa-a waxaa yimid rajulun nin ilaa rasuulillaah rasuulka allah nin u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow man qofkeebaa axaqu nnaasi dad ugu xaqnimo badan bixusni saxaabati la saaxiibadeeda wanaageeda qof aan la saaxiibin wanaag u sameeyo yaa mudanoo u xaqnimo badan qaala nabigu wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi ninkii uma kadib man yaa ku xigo oo derajada labaad qaala wuxuu yidhi nabiga ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi saxaabiga man uma kadib man yaa ku xiga oo derajada saddexaad u asxaan sameeya hooyaday kadib
qaala wuxuu yidhi nabiga ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi uma kadib man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nabiga uma kadib abuuka aabbaha u asxaansamay waa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal iyaakum waxaan idinkala digayaa howdadow idinka iyo wadanna malaha xunka ah inaad u malayso mala xun walaalka aad u malayso fa ina danna malaha xunka ah inaad waxaadan hubin aad u malayso ood waxaway niyada ku ood mala xun aad malayso akdabulxadiidi xadiid midka ugu xun way wax lagu sheekeeyo inaad mala isaga hadasho waan u maleynaa oo waan filayaa iyo waxyaabaha dadka u badan yihiin canqiila waqaala hadal aan la hubin oo meel laga soo qaaday iyo meel masdarkiisa uu yahay aan la ogeyn baa lasaga hadlaya nabigana waa diiday sala allahu calayhi wasalam waxa waaye canqiila qaala wa kathratu su-aal waa xadiid nabi sala allahu calayhi wasalam qiila waqaala in la yihahdo waa la yiri iyo waa la lahaa iyo waxaa la sheegay iyo dadka badankooda warbaahintoo dhanba waa iska noocaas marka waxa waaye waa la yiri iyo waa la sheegay qof walbood weydiisaba waa master kuu sheegi maayo waa la lahaaye war waxaasaa la sheegaya magaala war ma maqashay war waxaas maantoos dhan waxaasaa la kala gadi oo waxa waaye qofba qofka kale wax xaqiiqa qof haaya ma lahan wax xaqiiqa qof haaya ma lahan waana waa nabigu sala allahu alay wasalam tuu ka digay wey wax badanna uu ka digay nabigu sala allahu calayhi wasalam wax hadaad xaqiiq u haysana ku hadal haddii aadan hayninna waxa waaye ku hadlin haddii kale danihii iyo malihii iyo qiila waqaaladii la diiday way imaanaysaa marka insha allahu tacaala cashirkiina koowaad meeshaasaan kusoo gaabinayaa hada wabillahi tawfiiq wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk